kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee Soomaali Television oo kaga imaanaya magaalada Minneapolis Minnesota magacaygu waa Liibaan Xasan Quruf barnaamijkan aan ku eegi doono waxa la isbuucan dhacay ama xilligan taagan daawadayaal barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa magaalada Minneapolis Minnesota oo ku dooratay gudoomiyaha jaaliyadda North America ee Puntland iyo inagoo waraysi ka qaaday doorno gudoomiyahaas sida aad la socotaan jaaliyadda Puntland waxay jirtay 19 sano iyadoo oo jaaliyadda Puntland dadka ugu badan ay ku nool yihiin magaalada Minneapolis Minnesota sidaas oo ay tahay jaaliyadda 19 sano ay jirtay wax gudoomiye ah ama urur ah ama dhalinyarada ay lahayd ma jirin haddaba qofkii ugu horeeyay oo istaagay jaaliyadda uu istaagay oo rabay inuu sameeyo urur ama guddi ama gudoomiyaal jaaliyadda uu istaaga oo waxyaalaha looga baahan yahay dalka kan ay kaga caawin karaan jaaliyadda Puntland ee dalka hooyo ku nool sidoo kale daawadayaal sida aad la socotaanba gobolkan aan ku noolnahay Minnesota Minneapolis waa gobolka ugu badan ee Soomaalida ku nool adduunka qurbaha ay ugu badan yihiin waxaa jira deeqo badan oo laga bixiyo gobolka kan sida caafimaadka waxbarashada oo lagu deeqo dadka danyarta ah oo ka imaaday wadamada third world sidaas oo deeqaha ka baxa dalka kan Soomaalidu aysan ka arkin waxyaalo badan sababta keentana ay tahay shakhsiyaad dantooda iyo arrimahooda wata oo halkaas sidaas oo ay tahay shakhsiyaad dantooda iyo arrimahooda wata oo ka ganacsada alaabtaas ayaa waxa la yiraahdo deeqahaas oo dhan meel mariya oo geysta guryahooda ama dalkii hooyo ka bic mushtara waxa khadka live toos ugu jira mulki Cabdisamed Xaaji Xuseen oo loo doortay gudoomiyaha jaaliyadda ee North America mulki ku soo dhawow Somali Television Network Liibaan Xasan aad baan waxaan kaaga mahadnaqayaa adiga iyo tiimkaaga SNT Somali National TV in aad maaragtay caawa jaaniskaas isiisaan aan ku soo bandhigo inaan waxaan rabo ama aan tiigsanayo oo ah inaan kulligeen wax wada qabsano mulki su'aasheeda koowaad Puntland waxay jirtay 19 sano qurbo joogta ugu badan ee reer Puntland waxay ku nool yihiin gobolka Minneapolis Minnesota 19 sano ee Puntland jirtayna wax jaaliyada oo ay lahaayeen maysi jirin maxaa kugu kalifay xilkan in ay u istaagtid waad mahadsan tahay Liibaan waxa igu kalifay markaan arkay inay cillo u joogin meeshaan cidna aysan u soo istaagaynin kala daadsanaantii iyo kala maqnaanshadii ay badatay baa waxa igu kaliftay bal inaan samaysano inaan u soo istaago meelaha horta isku wareysano ana isku wargelino aanu iskugu nimaano oo aan ku midowno sida aad la socotaba dalkeena Soomaaliya waxaan ka soo qaxnay dhowr iyo 20 sano ka hor waxaa jira dhalinyar badan oo ku dhalatay qurbaha kan ee America oo ka mid ah gobolka Minnesota iyo kuwa badan oo ku barbaaray oo markay yimaadeen ay yaraayeen ayagoo soo aan aaminsanaynba Soomaalida ama qaarkood ba ay safahansaneen yaanan dhihina aaminsanayn qaarkood ba ay safahansaneen Soomaalinimada ama Puntland dhalinyaradaas jaaliyadaadu ma la shaqeyn doontaa waa waxyaalaha ugu waaweyn aan isleeyahay ma aragtay waan hiigsanayaa oo ah dhalintu waa mustaqbalkii bari dhalintu waa mustaqbalka yagi wadankii inay ogaadaan aan ka dhaadhicino aanu gelino aanu ku hurna lacagteeda inaan wadankii geeno ay tagaan iyagu ay la soo noqdaan fikir iyaga ay madax yihiin ay u madax bannaan yihiin ay yiraahdaan taasaanu rabnaa inaan wax ka qabano maxaa yeelay qofka haddaa wax kasta u sheegtid ma dareemi karo maskaxdiisana ma sheegi karto inuu waxaas uu qaban karo ama wuxuu qaban kara bay jirto marka waxaa loo baahan yahay in la tuso oo la taabsiiyo mulki sida aad la socotayba waxaa jira organisationno badan ama shakhsiyaad badan oo deeqaha laga bixiyo dalka kan aynu ku noolnahay ama gobolkan ay ku noolnahay shaati Soomaaliyeed u soo xirta ayagoo oo danahooda ayagoo oo ka ganacsada ama danahooda wax la yiraahdo mataqaana u wata arintaas jaaliyadaada cusub maxay arinka ka qaban doontaa والله wax maaragtay aan wax badan fiirsaday wax badan aan u dhabagalay wax shakhsiyeedka inaan horta ka baxno oo noqono dad guud inaan nahay ay noo arkaan senatorka mayorka inaan nahay jaaliyad isku xiran sharci leh kala dambeyn leh qodob kasta iyo qeyb kasta bulshada ka mid ah aynu meel ku wada haysano iyagu ay noo baahan yihiin iyagu noo yimaadaan markaa ka bacdina aan wareysan karno aan dhihi karno haddaan codkeena haysatid ama aad na rabtid maxaad noo qaban kartaa haddaadan dadka la midaynin
oo aad jidkii ay iyagu intay istaagaan ay isku kalsoonaadaan adiga oo dhan ba qof la xisaabtami kara waxa weeye nasiib darra waxay noo noqonaysaa maalinba qof inala jiito oo la yidhaahdo adaan ila shaqaynaya oo dadkii ii keenaya taa ma shaqaynayso taas way dhammaatay waxaa imaanaysa in la yidhaahdo dhalinyarada puntland ka soo jeeda maanta la fariisanaysaa dadka waaweyn ee puntland baad maanta la fariisanaysaa hooyooyinka baad la fariisanaysaa waxaasoo dhan maxay keenaysaa in ay bulshada qayb kasta ay ka hadasho dhibaatada ay tabanayso iyo waxa ay ka rabto shakhsigaas raba inuu codkeena helo aad iyo aad ayaa u mahadsantahay mulki shacabka reer puntland ee ku nool gobolka Minnesota ama North America ama wadanka daafihiisa maxaad kula talin lahayd maxaad uga tagaysaa Liban Hassan aad baan waxaan kaaga mahadnaqayaa adiga iyo tiimkaaga SNT Somali National TV in aad maaragtay caawa jaaniskaas isiisaan aan ku soo bandhigo inaan waxaan rabo ama aan tiigsanayo oo ah inaan kulligeen wax wada qabsano fursadaasna waa idinka mahadnaqayaa taas waxay ahayd gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda North America ee Puntland oo aan live ugu wareysanaynay khadka telefishinka ee Somali Network sidoo kale daawadayaal waxaa khadka noogu jira coach Ahmed oo ah coach tababaraha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota asagoo oo runtii magac dheer aad ugu leh community-ga Soomaaliyeed coach Ahmed wuxuu ka qayb galay ama uu joogay meesha lagu dooranayo gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda North America asagana haddaba waxaan wax ka weydiinaynaa sida uu u arko doorashada mulki la doortay iyo waxa ay qaban doonto coach Ahmed ku soo dhawo Somali Television Network ayaa u mahadsantahay adiga iyo Somali Television Network coach Ahmed waxaad ku sugan tahay xarunta lagu doortay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda North America ee Puntland mulki Cabdisamed Xaaji Xuseen haddaan wax ka weydiino maxaad ka taqaanaa mulki Cabdisamed Xaaji Xuseen horta Liban waa mahadsantahay xafladan ka soo qayb gal kaliya ma aha waxa dadka mulki kala shaqeynaya arintan jaaliyadda Puntland oo in muddo ah jaaliyad ma jirinba hadda waxay maaragtay sameysay in uu istaagtay in ay u shaqeyso dadkeeda iyo dalkeeda coach Ahmed sidoo kale mulki xilkan loo doortay ee gudoomiyaha jaaliyadda North America ee Puntland ma u malaynaysaa inay tahay qof ka soo bixi karta haddii se loo doortay maxaad u malaynaysaa inay qaban doonto mulki aqoon badan u leeyahay mulkina waxa aqaan 20 sano ilaa wadankan aan joogay mulki waxa wiligeed gabar active ah oo taqaano howlahan iyo maaragtay howlo ka badan inta ka tagtay Denmark ka soo shaqeysay haddana waxaan filayaa inay in ka badan u qaban karto state-ka Puntland awdayalkaas wuxuu ahaa coach Ahmed oo ku sugnaa xarunta ay ka dhacday doorashada gobolka Minneapolis Minnesota oo lagu dooranayo gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda North America sidoo kale daawadayaal waxaan wax yar ka daawanaynaa xafladda sida ay u dhacday iyo mas'uuliyiintii ka hadashay meeshaas ee daawasho wacan marka laga maarmaan bay noqotay in la doorto shakhsiga ku haboon marka gabadha walaasheena oo halka fadhida ayay noqotay aan leenahay guntiga inta meesha saga dhigno halala shaqeeya gabadha oo inuu shaqeeyno taas intaas aan ka leeyahay waxaan kaloo leeyahay meeshan waxaan u nimid caawa inagu haddaynu nahay dadka ummadaas dad Soomaaliyeed haddaynu nahay markii xigtana ku abtirsanayno jaaliyadda Puntland la yiraahdo ku abtirsano inuu ku abtirsano waxa loo baahan yahay inaynu abuuro jaaliyad la yiraahdo Puntland haddii wax la abuurana wax waliba waxay leeyihiin qof loo istaaga oo loo doorto oo la yiraahdo qofkaas yaan u dooranay haddaanu sidaas nahay inuu noo noqdo gudoomiyihii inuu noo noqdo ragga iyo gabdhaha markii la yiraahdo waxqabadka waxa ku fiican sidaynu aragnay ama taariikhda ay hadda inoo qorayso intii burburku dhacay gabdhaha ayaaba ku wanaagsan waxaan oran lahaa anigu waxaan oran lahaa taageerada gabdhaha inaynu badino in Xuseen ama dan inoogu jirin adeer sidoo sheegay inagoo dhan inuu ognahay waynu u baahannahay hoggaan jaaliyadda Puntland ma laha hoggaan marka ilaahayba haddii uu gabadha walaasheen mulki uu tusay inay inoo noqoto Minnesota inagana oo dhan waxa layna ka rabaa marka inaynu garab istaagno in aynu mulki ahaato qoftii jaaliyaddeena matali lahayd oo aan daba istaagi lahayn ما شاء الله جاليدان وجاليد وين وأنا قف أرنتان كبح كرته وأنا قف وحبذا أسوق بتي كوميونيتي وانتم بان أسوق استاجي معناها إن الله شقيسان فركلي فول مدغلو هدينا الله شقين الملكي
dee waxaa ma shaqaynayaan waxaa loo baahan yahay guddi badan oo iyadu ay doorato oo la shaqeeya aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaca Yaasiin baa la dhahaa بسم الله الرحمن الرحيم هرت مركه هره waa idin wada mahadnaqaya waxyaalaha aan aniga isleeyahay hadda hor waan u soo istaagay meeshan ama isleedahay jaaliyada Puntland waad u qaban kartaa horta waxa ugu horeeya waxay tahay tiro kooban oo sheegi karno ma jirtaba meeqaan ku joognaa Minnesota qof sheegi kara ma leh waan badannahay waa u badannahay 3 qaybood 2 qaybood baan nahay warar badan baad maqlaysaa wax sheegi kara ama qof dhihi kara intaas aan ku joognaa oo numberka Minnesota aan ku joogno waa intaas ma jirto marka hore waa taas mid kale oo ugu daran waxay tahay inaan horta midowno oo u midowno inaan danaheena ka wada shaqeyno iyadoon cidna aan lagu halaynin Puntland cidna aan lagu riixin ay tahay waxay ka bilaabatay Puntland Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariisto wuxuuna ahaa shakhsi intuu fariistay fikirkiisa dad u keenay oo yiri maxay idin la tahay in arrintan qabsano arrintii waa lagu dhaqaaqay marka maanta waxay maraysaa 19 sano alxamdulillah waxaan u baahan tahay maalinba qof inuu soo istaago oo hadda meeshii banaan la buuxiyo cidna kala sugin jaaliyada Puntland markaan raahno aan maanta halkaan u soo istaagay ma ahan mid maanta maalgaleen ama qof ku maalgelinayo ama uu qof dawlad ay ma aragtay ku siinayso ma aragtay budgetkeeda ay ku jirto mid Mareykan iyo mid wadankeena maxay tahay marka waxay noqonaysaa in anagu isxil qaano oo isku nimaano oo aan ka sheekeysano oo ka wada hadalno oo aanu yeelano meel xataa ma aragtay isugu imaan karno uu qofku oran karo fikirka aan hayo iyo waxaan hiigsanayo iyo himilada igu jirta xagee baad ku sheegtaa yaad u sheegtaa yaad wax la qabataa yani qofku waxa laga yaabaa inuu waxba ku dhalan intuu wadanka dhex joogo waxa laga yaabaa inuu wadankii tago uu markuu tago uu soo arko waxyaalo ku dhaliya in uu wax ka qabto laakiin qofkii kaligiis wax ma qaban karo waxay noqonaysaa marka in uu helo dad uu la yimaado fikirkii waa fikir fiican laakiin yaa wax kula qabanaya wax kula qabanaya bulshadii ka soo jeeday meesha waa in uu istaagtaa waa in jifada la iska dhaafaa waa in ma aragtay iska daba socodka la iska dhaafaa waa in loo midooba loo istaagaa in hadaad rabtid inaad wax qabatid dadka ma aragtay heer xamarka anagu aan raahno yani dadka xamar daga u badan buu wuxuu ku samaystay tirakoob wuxuu u tagay dawladii dadka wax taageere oo ma aragtay yiraahdo taageera dadka ka rabnaa wuxuu yiri intaas oo qof baanu nahay anagu marka inta markaan nahay waxaanu leenahay codka iyagu marka waxaan rabnaa in xaafadahan deganahay iskuulada aanu ilmaheenu tagaan meelaha anaga aan micnaha shaqada la'aanta dadka iyaga haysata in aanu wax nooga qabataan maxaa yeelay intaanoo dad baan haystaa haddaan nahay Puntland ma haysano mana u tagi karo maanta senatarka aniga 10 qof oo kale iga horeysay maanta ma haysto senatarka haddaan iraahdo waxaan ahay Puntlander intaasoo qof baan ku joogaa wax kooban oo sheegi kara ma jiro marka waxay kalifaysaa oo anigu igu kaliftay oo aan fiiriyay in aanu yeelano meel horta aan sugu nimaano meel aanu horta tirikoobka yaga la qoro qof kasta iyo meel kastu ka soo jeedo tuulo kastu ka soo jeedo haddii aad adigu ku taahaysay ama tabanaysay wax lagama qabto adiga lagu oranaya maxaad ka qabanaysaa adigu maxaad noo soo jeedinaysaa oo aad rabtaa in meesha laga qabto waxaan u baahanahay dhalinyarada inaan kicino waa laga tagay waqtigii aanu anagii maalin walba soo taagnaano aniga maanta wiilkayga inuu joogo wiilashaydii wiilal bay ma aragtay kala saaxiibo la yihiin dadkii in la keeno ilmihii in la yiraahdo gabdhihii wiilashii maxaad wadankii u qabanaysiin in ay dhacdo inaan anagu lacagtayada intaan iska aroorino inaan ilmaha yaga iyo dadka waaweyn iyo dadka dhexe iyo dumarka ragga bal isku daro oo wadankii loo diro oo la yiraahdo idinku bal soo aruuriya
xogta waddanka maxaa ka jira, waddanka maxaa ka jira, waddanka maxaan ka qaban karnaa. maalin walba qof un ma wareysan karno, tv ma fiirsan karno. marka waxaan imaanaysa inaad mashruucyo intaad u istaagtaan aad tiraahdaan qayb baan dhalinyarada u istaagayso, guddi baan u sameynaynaa, guddi baan waxaan u sameynaynaa waayeelka, guddi baan waxaan u sameynaynaa dhallaanka iyo hooyada, guddi baan waxaan u sameynaynaa danyarta, guddi baan waxaan u sameynaynaa dadka maskaxda laga galay oo qofna u maqneen, guddi baan waxaan u sameynaynaa in ay dadka wacyi geliyaan, hadday halkan tahay iyo hadday tahay miidiyaha. miidiyuhu waa wax weyn. tuulada qofka joogta haddaad ka dhaadhicisid canshuurta faa'iidada ay leedahay, haddaad bixisid ood ku soo celcelisid, waxay noqonaysaa canshuurta in la bixiyo, waxay noqonaysaa jidadka in loo dhiso, waxay noqonaysaa dadka in wax la baro, waxay noqonaysaa in shaqo abuur loo sameeyo. marka anigu ma ahan waxaan hadda halkan ku soo koobi karo waxaan u baahannahay, maxaa yeelay waxaan u baahan oo anigu aan arkayo in ka badan bay dadku og yihiin. laakiin waxaan idiin furay jidkii aad ku istaagi lahaydeen oo aad hiigsan lahaydeen in aad garataan oo u istaagtaan, inaad yeelataan hami aad ku istaagto. qof walba, shakhsi walba, da' kasta ha jiro, inaanu u istaagi karno in meel aan isku dhegaysano, oon isku qiimeyno, oon isku soo dhoweyno, oo aan ku midowno aanu helno. waxyaalaha kale oon anigu aan badan aan u baahannahay inaan guddiga dhalinyarada xoojino, guddiga dhalinyarada in la xoojiyo. arrintan waddankayga laga haajirayo in la joojiyo, in shaqo abuurku ma ahan ilmuhu inay jaamacad injineer iyo dhakhtar ka baxa, ma ahan. shaqo abuurku waxa weeye 10 sano anigu ka soo shaqeynaya meesha la yiraahdo Denmark ee magaalada Aarhus. shaqo abuurka dadkii nooga horeeyay wadamadan markii ay dadkooda ay rabaan inay shaqo abuur u sameeyaan, ayagay horta wareystaan, waxay yiraahdaan maxaad ku fiican tahay horta hore, maxaas ahaan jirtay waagii hore, maxaad ku hamin jirtay, halkaas ay ka amba qaadaan. waxay kale weydiiyaan maxaad isleedahay meesha aad ku nooshahay waad ka qaban kartaa. marka waxay keenaysaa dadka waddankii joogay in horta su'aalahaas la weydiiyo oo la yiraahdo war intaad $100 sugi lahayd dukaan haddaa furta ka war, ama aad horumar u keenin, ama caqligaadu keenin, dhaqaalana daba socon. ilaa qofku kuma dhageysanayo haddaad dhaqaale keenin. qofku wuxuu kugu dhageysanayaa waxbaan ku siinayaa maxaad qabsanaysaa, waxbaan ku siinayaa maxaad qabsanaysaa. markaas ka bacdi uu qofku wax qabsanaya. waxaad ka shaqaysataan oo waliba team work ku samaysataan oo ah haddaad tiraahdid 15 cunug baan maal gelinaynaa, haddaan jaaliyada Puntland ee Minnesota, waxay noqonaysaa inuu qof walba dhagihiisa ku soo taago. maxaad rabtaa inaad samaysiin? waxaad samaynaysiin inaad ka shaqaysiin, inaad shaqo idinku abuurataan ood soo saarataan waxaad rabtiin inaad ka shaqaysiin. taasaan idinku maalgelinaynaa. marka qofku wuu fakerayaa, wuu istaagayaa, wuu fariisanayaa, xaafaduhu tegayaa, magaalooyinku tegayaa. ilaahu muu yiraahdo meeshaan coos male, coos baan keenayaa. marka dadkii waxa weeye way dhaafsan yihiin waxay haysteen, wax kale u jeedaan. marka waa in dib loo soo cishaa indhahooda la yiraahdaa bal waxa adiga horta aad haysatay fiire iyo meesha aad taagantahay. marka anigu kolley ma hayo maxaa la yiraahdaa jawaab wixii Puntland u baahan tahay, laakiin waxaan hayaa furihii loogu furi lahaa albaabadii aan lu garaaci lahayn, iyo sidaan u istaagi lahayn, iyo sidaan isku oran lahayn wareedha aan is abaabulno, oon is aamino, oon isku tashanno. markaa ka bacdi baan horumar gaarayna. sidaas bay aniga ila tahay. waan idinka mahadnaqayaa mar kale, ma soo koobi kara caaway aniga waxa igu dhaliyay, laakiin waxay ila tahay dad ila shaqeeya haddaan helo waxa la arki doonaa dad badan oo tigid loogu gooyay Minnesota ka baxa oo taga Puntland oo ka soo sheekeeya oo shaqana shaqo gala
inay waddankiina ka shaqeeyaan halkaana ka shaqeeyaan laakiin waxaan ku gaaraynaa inaan midoowno horta hore oon is aamino amaasantiin daawadayaal xafladaas qurux badan ayaa u dhacday waa daawanaysaan sida oo kale barnaamijkeena faaqadaada maanta intaasuu naga eegaya waxaan inii daadihinayay anigoo ah Liimaan Xasan Quruf sida aan dib dambe u kulmi doono waxaan kaga tagayaa intaas nabadgelyo